mooy markuu xilka ka digay isagoo mar niyo ku sugan ayaa waxa laga weydiiyay arrimaha Soomaaliya baax uu nooga sheeg runtii jawaabtiisa wuxuu yiri Soomaaliya weligeed ma digi doonto inta wadamada dariska la ah ay cabsi ama walaac ka qabaan riyada Soomaali weyn waa hadal uu madaxweynihii hore ee Kenya ka sheegay Soomaaliya mar wax laga weydiiyay maalmihii u dambeeyay Kenya ayaa sii kordhisay cadaadiska siyaasadeed ee ay saarayso Soomaaliya bishii February ee sanadkan markii ay Kenya si lama filaan ah Muqdisho dib ugu soo celisay safiirka Soomaaliya ee Nairobi lana baxday midkii Muqdisho ay dad badan sii saadaaliyeen in tilaabooyin kale la filan karo waxa xigay toddobaadyada deegaanaan la filayay in ay Kenya joojisay diyaaradihii tooska u tagayay Nairobi ee Muqdisho ka baxay kuna celisay in lagu baaro Wajeer sidoo kale waxa muddo 10 cisho ah baraha bulshada ay dad Kenyaati ah una muuqda kuwa la carbiyay ay baraha bulshada ka wadaan kicin dadweyne oo ay ku sheeganayaan badeena sidoo kale waxay baraha bulshada ku sheegayaan in Soomaaliya ay gumaysi gelinayso Kenya iyaga oo sidoo kale ku qaylo dhaaminaya in madaxweynaha maxkamadda adduunka uu yahay nin Soomaali ah loona baahan yahay in dadka Kenya ay arrintaasi ka midoobaan isla markaana Soomaaliya meel uga soo wada jeestaan ganacsiga ee Kenya ee Soomaalida ayay sidoo kale aad uga qaylo dhaamiyeen micno xun ay u yeeleen intaasi oo dhanna waxay muuqaalada iyo qoraalada ay ku baahinayaan baraha bulshada salka ku hayaan kiiska ay ku sheeganayaan badda Soomaaliya waxa xigtay in shalay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ay u diideen dalku galka Kenya markii ay garoonka Jomo Kenyatta tageen taasi oo sababtay in qaarkood maanta Muqdisho dib ugu soo laabtaan sidoo kale muddooyinkii u dambeeyay cadaadiska Kenya ayaa aad loo hadalhayay ay ku hayso dawladda Soomaaliya toddobaadyadii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyada ay Kenya samaysay waxaa ka mid ah in Somaliland ay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiyada diyaarad gaar ah uga qaaday Hargeysa geysayna Nairobi kuna shirisay halkaasi tilaabooyinka ay Kenya qaadayso ee dhanka diblomaasiyadda ayay dad badan waxay ku micnaynayaan inay tahay mid ay ku doonayso in looga laabto dacwadda badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa isla markaana taala maxkamadda adduunka sida uu ku waramayo Cabdixaliim Ibraahim oo ah bare jaamacadeed isla markaana ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga موضوع حساسية هذا التاجر وموضوع مهم جودها شعب الصومالي ومرأة أهم عريض كعادي وعريض هذا أبابل وشعب الدولة كينيا كورشيين خبار من يكون حسجريان جودها شعب الصومالي وانا بذلك فرق بدن حتى بحضاء صبح دولة الأحدث ذاكم بسر إدارتي باعتبارك بالمسيرة أما باعتبارك السياسة بسيدة لو يقعنوا بذلك فرق بدن يكسوا وجهدي جديد عالمية جمعيات international airport بذلك الأولى نحن وحويانا إن دولة جديد لقدروا هاي البناء وقران لكن أسيبجرنا ماشي العيرة ليه dadka hogaamiyaasha mas'uuliyiinta meeshaasi joogay lagu arkay waxaa aad u habboonaan lahayd inay ka soo laabtaan kadib daraar kale ay leeyihiin oo muhiim haddii ay jiraan oo aan laga baaqsan karin baaqbarooda ay ku baxaan laakiin isla meeshii goobtii bay ku bedesheen taasna waa guuldarro u soo weetay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waana dhibaato aad u xanuun badan barnaamijkaana waxaa ka dambeeyo haddii nuqulka guud haddii lasoo koobo wax kale maaha وعلادس دبلوماسية وصارية شعبك صوماليات يودهان دولة الصوماليات وعلادس الصارية علادس كان علم الدبلوماسية وقولها دبلوماسية كلاش عمر علادس دبلوماسية Kenya waxaa ku nool Soomaali aad u badan kuwaas oo isugu jira ganacsato arday iyo sidoo kale qaxooti kuwaasi oo inta badan la tilmaamayo in ay saameyn karto xiisadda u dhaxaysa labada dal sidee ayayse laga yaabaa inay u saamayso shacabka Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan xiisaddan waa kan wariye Cabdi Axmed oo ka howlgala gobolka Waqooyi Bari oo aan wax ka weydiinay Soomaalidu way aragti dheer tahay hantidan isli taalo Westlands makhaayadahan caalamiga oo bartamaha magaalada Nairobi ku yaalo meelaha lacagaha maaragtay la kala diro oo maaragtay M-Pesa ha noqoto ama xawa inta badan waxay ku diiwaan gelis yani markii la tixraaco wax Ingiriisiga ay dhahan paper trail yaa ku qoran iyo muwaadin xagu ka soo jeeda inta badan waxaad moodaa dad Kenyan ah inay magacahooda ku qoran yihiin ama xitaa siyaasiyiin Soomaaliya haday yihiin waa siyaasiyiin oo baasaboor ajnabi haysto Sweden ama Denmark ama Mareykanka marka hadii dawladda Kenya isku daydo inay farageliso dabcan safaaradaha maaragtay baa loo waraa muwaadin maaragtay Mareykan baan ahay waa dawladda Kenya ayaa
ayaa isoo fargelinaysaa ganacsigayga marka saameyn weyn kuma yeelan doonto laakiin waxaan u malaynayaa go'aanka Soomaaliya ka soo bixi doona haddii arrintan ay sii jiitanto. dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay warka soo saarto xiisadda mar kale dib u soo cusboonaanaysa ee Soomaaliya iyo Kenya sida ay wareedyo ku waramayaan. dhanka Kenya ayaa lagu eedeynayaa in ay ka gudbayso xadka derisnimo iyo sidoo kale diblomaasiyaddii loo baahnaa in lagu wajaho xaaladahan oo kale. Kenya ayaa ku eedeysan inay doonayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya taasi oo haatan ay dacwadeedu taallo maxkamadda adduunka. si la mid ah Kenya waxay ku eedeysan tahay burburinta xarumo ganacsi oo gudaha dalkeena ku yaala.